Professor Cabdisalaan Yaasiin Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta reer Somaliland oo maanta warbaahinta qaarkood kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay safarkii dhawaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxaanu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in loo soo bandhigo shacabka reer Somaliland wixii lagaga wada hadlay safarkaasi madaxweynuhu ku tagay dalka Jabuuti isagoona tibaaxay professorku in madaxweynuhu ku dhawaad uu ku maqnaa muddo 5 maalmood dalka Jabuuti balse aanay waxba ka soo bixin safarkiisaasi weyn dul saartay waxa weeye madaxweynuhu 5 maalmood buu joogay ayuu joogay Jabuuti 5 maalmood in arinta biya mooyaan wax alla wax kale ka soo baxayna ma jirto socdaalkiisa حقنا وين نقول لنا إنه نوجانا مدحوينه إنه ده إنه شيء أو حماش جبوت وشوي شنطة معلومة كينيا وتجي وكوريسي كينيا ما أنت كوريسي بلكي هو بنقول بولا للسعودية شركة أيا للسعودية دولة كينيا أيا سوساري سبيان ده أو إنه شيء يسي يجا هذي ولا سوساري وحلو السياحة لسوساري لكن جبوتي حتى بيها كان ده مدحوينه إنه كم عالدين إن بيا يضلوا ده السياحة يشروده دي ما ينانا وحابق لقورنا يا مركز قال كود مالها هذا اللي قالي فرماتشا بريجو هراء مركز أنتوا ويديستي يسووا السياحة يجري ده مركز سومالي لاند ويديس أنا قوانا قولي ده بدنا مركز إننا كنا سلاس حياة سلة وكنت جاي موس مدحوينه مصبح وحياة وكنت جاي أي تاسي كم تايو أنتوا يريد وده كي ماشى وأيوه قلادة ده أديك ده ماشي لا يسوق ما هيسته حندوني يا سومالان ديك كم ضحايا إن دبي السيسان وأورك الشيء مركا ده أنت حتى طالب بيني يا باب مهمة أنت طالب بيني ودي دعوة بيجتوا ودي شغل سكون هنا مكان waxaa muhiim ah inuu madaxweynuhu noo sheego wixii kale meesha ku jirtay iskaashi la wada qabsan karo iyo hadalku aga barka jeediyayna hadal xanaf wuxuu islaa isagu xanaf iyo kuleel hore aan loo baahan inuu soo saaro oo bisigii dib soo celiyo isagii baabu kaasina dib ku keeno waatide annagu waanu dhaliilay dadku waa wada dhaliilayeen laano madaxweynuhu aga bar horumarkeedu ahayd inuu ka hadlay iyo sidii beeraha wax loo marlaay laakiin de ma ahayn haddaanu Djibouti ka waramaynin iyo wadada Djibouti ee aga barbarta sida loo sameeyo iyo aga bar wixii loo qabanayo iyo beeraha aga bar sida khudradda aga bar inooga timaad barandada iyo basasay biya in loo soo saaro weeyaan dadkan halkan inoo shaqeynaya inoo soo saaray beeraha maaha loo baahna inaad uga sheekayso doorasho dhacday iyo dhibaato ka timi waxa siyaasiyiinta leh waana shaqadii siyaasiyiinta in la daweeyo waana taano anagu leenay in la daweeyo dawadii bay u baahanto anagu dawada taladaan ka bixinayna wixii talaayna la noqoto Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac